Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadlaynaa dareenka traderka marka uu khasaaro ama uu khasaaro khasaare ay gaarto trade ku khasaaro waxyaabaha dhici kara inuu dareemo ama sida uu markaas noqonayo emotion ahaan ama dhinac kasta. Marka wuxuu dareemo qofku marka uu trade ku khasaaro waxaa kamid ah inuu hal kilig uu sameynaya marka ugu horeysa trade uu gelaya. Tradekaas macnaha kalsooni uu ku galay inuu maaragtay tradekaas uu noqdo mid maxaa yiraahdaa guuleysto oo ku niyad fiicnaa isla markaana niyad ahaan uu aaminsanaa inuu ku guuleysanayo laakiin waxay noqotay inuu ku khasaaro. Marka maxaa dhacay marka khasaare kadib maxaa dhacay marka mararka qaar traderka waxaa bedela khasaarada isla markaana fikrad fara badan ayaa ku dhasha markuu khasaare gaaro. Qof kasta oo forex gala maalin ayuu khasaaraya horta laakiin maxaa marka ka dhacaya maskaxdiisa qofka markuu khasaaro. Qofka markuu khasaaro maskaxdiisa marka hore wuxuu dareemayaa shock waxa la yiraahdo shock ku dhacaya because kalsooni ayuu qabay oo wuxuu ku kalsoonaa tradekan uu galay inuu yahay mid uu ku guuleysanayo laakiin khasaara timid. Marka shock wuxuu ka shoogaya calaashan istiraatiijiyada uu ku galay tradeka ayaa khalad noqotay marka shock uu ka qaado oo uu ku shoog garo xogaa confusion ku dhalisay. Okay wuxuu leeyahay marka maya marketka ku laabo ayuu isleeyahay marka go'aan ayuu gaaraya si uu market ugu laabto isla markaana wuxuu ku dadaalay inuu revenge wax la yiraahdo sameeyo argos isagoo iska fiirin ama aan fiirin maaragtay candlekii hoos u aaday oo meesha green ama uu ka sugay rarka noqday ama meesha rarka sugay green ka laab ku noqday marka wuxuu keenayaa inuu maaragtay revenge inuu sameeyo. Revenge-gaasna waxyaabaha oo suuqa keeni kara inuu qofka ama account-kiisa inuu gubto waxaa kamid ah inuu asagoo hadda khasaaray oo isku dayo inuu dib ugu laabto si dhaqso ah isagoon ka fiirsan isagoo markaas gaar maadka soo kab trade-ka hadda khasaaray soo kab isagoo sidaas revenge argos uu sameeyo isla markaana khasaaro fara badan uu keeno account-kani sida ku gubto. Marka khasaaradiisa markaas way sii soconaysaa. Okay maxaa markaysa kadib maxaa dhalay marka hore ayaa bilaabanaysa marka qofku waxoogaa si uu marka qalbigiisa kan iyadoo qof interrupt garay ama qof wax ku darsaysan jirin waxaa laga yaabaa inuu kaligiis uu fikir ku dhashay ama caro uu dareemo. Marka wuxuu isleeyahay maxaan stop loss-kayga u dhigan waaya ama aan u kordhin waaya. Haddii stop loss kordhiyana stop loss la kordhiyaa waa kan ugu xun oo khasaaraha fara badan ku keena account-ka ama ku gubtaba. Okay maxaa soo haray marka haddana stop loss ma dhigan markii hore ka soo qaad markii tradekii uu ku khasaaray khasaaro fara badan uu gaaray uu suuq noqon doono usulaha waxay yimaada haddana isha khasaaradaasi baad marka wuxuu ka shalaaya oo dib ugu shalaaya maxaa stop loss u dhigan waayay si tradekii aan ku khasaaro u noqdo khasaarihiisa u yaraato. Okay qalbigiisa si degdeg ah ayuu marka u garaacmayaa maskaxdiisana waa buuq ayaa ku furmaya waxay rabtaa marka inay revenge sameyso. Revenge ayaa kusoo laalaabanaya si uu tradeka mar walba uu kii hadda khasaarada uu galo ugu laabto. Taa marka waxay keenaysaa inuu noqdo qofkaasi qof emotion ahaan kacsan emotionkiisa uusan ka xakamaysan. Marka khasaaruhu batana kalsooni ayaa dhacda kalsoonida suuqa uu ku qabay way ka dhamaanaysaa qofka wuxuu isleeyahay adiga tradeka aad gashaaba suuqan forex-ka ma ahan mid ama stock-an mid aad fahamsan tahay ma ahan suuqa maaragtay weli waxbaa ku dhiman isagoo markaas kalsoonida ay ka lumayso. Marka wuxuu bilaabayaa inuu isweydiiyo forex ma ii shaqeynaya asaga nafsi ahaantiisu isweydiinaya habeenkii hurdo la'aan uu dareemaya asagoo chat ka fikiraya chat maanta uu ka khasaaray ama khasaarada maanta uu galo ka fikiraya because waxay ku keentay khasaaro fara badan ay ku keentay. Okay maxaa soo haray marka laakiin traderada guuleysta meeshan ay ku kala duwan yihiin marka differentiga u dhexeeya marka tradeka guul dareysta iyo midka guuleysta intaa yar u dhexeyso. waxyaabaha marka laga rabo inaad adiga sameysid tan waaye marka si aad u noqotid trader guuleysa marka waxbay fahmaan khasaaradooda waxbay ka fahmaan khasaaruhu waa qayb kamid ah ay fahmaan in gameka aad ku jirta ama suuqa aad ku jirta khasaaro haddii aad gasho waa mid gamekii ku jirta because khasaaraha maanta aad gashay si uusan berito kugu soo laaban waa inaad wax ka fahamtaa si aad tixraac ugu sameeyid marka journal ayaa sameysanaysaa journalkaas wuxuu ku keenayaa inaad qortid khasaarihii aad gashay isla markaana aad tixraac ku sameysid tixraacaas marka wuxuu ku keenayaa inaadan ku laaban mar kale.
markii aad trader guuleystay inaad noqoto arabtida waxaa lagaga baahan yahay inaad batansi noqoto qof u degan oo aad suuqa ku degdega ama ku boodboodan inaad ku boodbooda aad ilaalisid isla markaana aad ku dadaashid in aadan maaragtay sheega suuqa aadan ku laalaaban okay discipline waa inaad yeelataa waa inaad discipline yeelataa oo discipline uu noqdaa waxyaabaha adiga muhiimka ku ah waa in aad guul inaad gaartay markaa rabto inaad discipline yeelato oo si discipline ah u sugtaa suuqa si uu ama uu u yimaado horta adiga istaraatiijiyadaada saxda uu ugu yimaado suuqa meesha aad rabto inaad ka gashay tareedka oo aadan ku boodin in isaga oon dhamaanin kanalka ka soo qaad adiga degdegta discipline la-aan waay taas risk managementiga marka inaad xakamaysidna waa tan keliya aad ku xakamayn karta khasaarahaaga because waa inaad ogaataa waxyaaba aad khasaaraysid iyo waxyaaba aad faa'iido aad helaysid marka hore tareedka marka aad gelaysid in aad ogaatid horta maxay tahay waxaan khasaaraya maxay la eg tahay faa'iidadiisa maxay la eg tahay taa waa inaad isweydiisaa markaad taa ogaatid kadib ayaad tareed geli kartaa akoonkaagana aad badbaadin kartaa marka forex ma ahna inaad mar waliba guulaysato ama suuqan onlineka ma ahan mar kasta inaad guulaysatid khasaaro way imaanaysa laakiin khasaarahaaga waa inaad ahaataa mid aad wax ka baratid waa inaad barato marka sida loo badbaadiyo akoonka waa kan ugu horeeya qodobka ugu horeeyana waxa weeyaan in aad stop loss la-aan aadan gelin tradeka inaad discipline aad samaysid oo aad maaragtay qof discipline aad noqotid risk managementkaagana oo noqdo mid xisaab ku fadhiya si akoonkaaga uusan u guban marka waxaan gordho soo gudbi doonaa haddii la yiraahdo video kale oo aan uga hadli doono beginner strategy taasoo runtii aad muhiim u ah inaad wax badan ka ogaato marka si aan hore ugu sii socono comment ku qor oo si aad u ogaano waxyaaba aad ka fahamtay iyo sida aad maaragtay aan hore ugu sii dhaqaaqi karno fikirkaaga waa noo muhiim subscribe kana noogu dadaal insha allah noo saar subscribe haddii ilaa yiraahdo waa mahadsantii saaxiibada